السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعبد الناصر ومانتنا هالكن idin ka soo bandhigi doona barnaamijyadeedii joogtada ahaa ee ku saabsanaa arrimaha bulshada insha Allah ta'ala maanta waxaan idin hayaa sheekada magaceeda la yiraahdo baroortu orgiga ka weyn baroortu orgiga ka weyn baroortu orgiga ka weyn inta aan sheekada bilaabin waxaan si xishmad iyo qadarin la idin ka codsanayaa dhammaan dadka na daawanaya iyo inta na daawan doontaba share like subscribe iyo in aad wixii fariina noogu reebtaan qaybta commentiyada ama faallooyinka intaasi kadib bal waxaan bilaabi doonaa sheekadeeni baan bilaabi doonaa sheekada magaceeda waxa la yiraahdaa baroortu orgiga ka weyn waa laga yaabaa dhamaantiin inaad maqasheen iyada oo ay tahay sheekada ciwaankeedu waa mahmaah kamid ah mahmaaha Soomaalida oo la yiraahdo baroortu orgiga ka weyn sheekada hadii aan idin bilaabo aan ku soo dhawaado waxa la yiri wiil iyo gabadh ilmaabti ahaa oo ilaa iyo yaraantii ama dhalaanimadii halka ku wada raacayay xoolaha oo isku deegaan ahaa oo wiil gabadh iyo nin walaalo ah kala dhaleen iyaguna ilma abti ah ayaa sidii ay baraarka u wada raacayeen kolkii ay waaweynaadeen wiilkiina uu noqday doob gabadhiina ay noqotay gashaanti timatidcan ayaa wiilkii iyo gabadhii waxa dhex maray haasaawihiina wuxuu isu bedelay haasaawo guur dabeetana wiilkii iyo gabadhii waxay sheekaystaanba waxay ku soo gabagabeeyeen sheekadoodii in ay isguursadaan ama ay rug iyo reer wada dhisaan oo ay noqdaan lamaane nolosha wadaaga halkaasay ku soo gabagabeeyeen sheekadoodii dabeeto waxa dhacay markay giraantu halka batorinayso ayaa wiilkii iyo gabadhii reerkoodii labadoodii reer ee markii hore wada deganaa waa ay kala guureen oo reer waliba xaqii reerkoodu ahaabuu u guuray dabeetana labadii beelood bay colaad sokeeye dhex martay had iyo jeerna colaad dadka miyiga dhex martaa barigii hore maadaama Soomaalidu ay ahaayeen dad xoolo dhaqata aalaaba waxay colaadu ka dhici jirtay daaqsinta iyo maxaan ku raahdaayay waxa la isku leen jiray ceelka iyo daaqsinta iyo waxyaabahaas la isku leen jiray dagaal xun baa ka dhacay halkii birta la iska aslay waa la soo weeraray weerar celis baa dhacay qolo waliba qoladay ka cududii ciidan rooneed baa la isu xoog sheegtay waa la ismuquuniyay inankii wuxuu ka mid noqday colkii soo weeraray inantii ay ilmaabtiga ahaayeen reerkoodii buu ka mid noqday isla markiiba wiilkii waxa wadnaha garkiisa gooyay warankii ugu horeeyay ee la rideeyay baa wadnaha garkiisa gooyay halkaasuu wiilkii ku geeriyooday markaasaa islaantii eedada u ahayd ayaa isla markiiba waxa loo soo sheegay oo lagu yiri inankii madiga ahaa ee walaalka dhalay maanta dagaalkii beeshiin iyo beeshii walaalka inankaad muxuu ahaayay waxa inankaad eedada u ahayd waxa weeye waa dhintay oo waxa weeye dagaalkii beeshiin iyo beeshooda dhex maray ayuu ku geeriyooday inanku madibu ahaa islaantii af labadiiba yeedhay waxa weeye qaylo baroorteedii buu geelu ka cabay inantiina way ku dartay islaantii way iska aamusto way garwaaqsato waxay tiri ilaahay waa xaqiisa qaate mar hadduu inankii madiga ahaayee walaalkay dhintay waxa weeye orgigaa yaree ciid kale baan dee axankiisa raacin doonaayo wax kaloon sameeyo garan maayaa dee Allah u naxariisto bedel khayr qabana ilaahay muxuu ahaayay hasiya walaalkay dabeeto markay arrintu halka marayso ayaa waxa dhacay inankii uu halka ku geeriyooday inantii yarayd baa wax aliyaala iyo wax bog iyo baabacale oo aamusiya waa la waayay dabeetana reerkii baa waxa yimid afar dumar oo socota aba reerkii yimid had iyo jeer dumarku markay reer soo martiyaan iyaga oo socota ay yimaadaan baraxa iyo biyaha lagu la tacaalayo hadba reerku wixii uu yaamis iyo calalis haysta ayaa xilliga loo dhiibaa dabeetana dumarkii wixii reerka yaalay baa la siiyay kolkii dumarkii ay fadhiisteen ee la baashiray ee si wanaagsan loo qabtay ayaa waxay maqleen oohinta iyo baroorta baxaysa dabeetana waxay yiraahdeen maxaa dhacay oo maxaa lala ooyayaayo waa iyo cid ooyaysayo dabeetana islaantii baa tiri ilaa waa hooye waa inan yaroo aan dhalayo inaabtigeed oo maanta dagaalkii muxuu ahaa halka ka dhacay baraarkana inay wada raaci jireen oo ilmaabti ahaayeen oo dagaalkii halka ka dhacay ku dhintay bay u ooyaysaa waxa kale u ooyaysaa bay tiri islaantii
waxa kale inanta yari u ooyisaayo oohinteeda laba ku sii ah bay tiri oo ka sii oohinaya iyadoo u xil qarinaysa inanteeda ilaa waa hooye waxay u ooyeysaa bay tiri orgi yaroo ciid lahaa oo aan axankii inaabtigeed oy aad u jeclayd oo aan raaciyey kaana way u ooyeysaayo way ka samri laadahay bay tiri markaa labadaa masalo ayay labadaba inanta yari ay u ooyeysaa dabeetana dumarkii buu ilaahay yaabya ama kaagu keenay way u qaadan waayeen inantu inay ma garanaysaa garwaaqsan weydo inuu ilaahay xaqiiqaata yahay oo qofka marka ajashiisu timaado wax kastaba ha lagu sababe uu soconayo dabeetana dumarkii saddexda ahaa iyo islaantiibaa aada u sheekaystay way iska kaftameen waa dad isku deega ama waa dad isgaranayo oo isyaqaano oo waxa weeye deegaan wada deganaanine laakiin dee waa dad marka haybta la isu sheegay isgaranaya oo qof walba halka uu ka soo jeeday iyo maxaanku dhahdaayay ama qabiilka uu ka soo jeediyo ciddu yahay waa dad dadkaa deegaanku dhammaantood iswada yaqaano oo iswada garanaya markaasaa waxaa dhacay markay arrintu halkaa marayso ayaa islaamaha ka mid ahayd oo aad u maskax furnayd ayaa waxay tidhi wallee inantaa yari waxay u ooyeysaa ay u aamusi la'dahay ay afka gacanta isaga gelisay baroortu orgiga ka weyn wallee baroorta inantaasi orgigaa yaree aad sheegtay ee alqale ee ciidciid kale ka weyn bay tidhi islaantii dabeeto masaladii waxay noqotay maahmaah dhammaan dhulka soomaalida oo dhan laga adeegsado oo waxa weeye marka qofku wax aanu loo soo qaato waxyaabo fara badan oo loo adeegsado meelo fara badan had iyo jeerna haddaad maqashay ereyga maahmaahdu iskama timaado maahmaahdu sheekay ku timaadaa maahmaahdu madal bay ku baxdaa la isugu yimid lagu garnaqsaday waxa weeye tale lagu gorfeeyey la isugu gar dhigtay lagu kala gar helay ninna gartii helay ninna uu gar ku waayay guurti iyo garcas ay soo fadhiisteen halkaasay maahmaahdu ku baxdaayo ninba ninka uu ka aftaansan yahay ayuu adeegsadaa maahmaahda markaa waxa dhacay waxay noqotay baroortu orgiga ka weyn waxay noqotay maahmaah dhammaan dhulka soomaalida oo dhan laga adeegsado sidaasay markaa ku noqotay maahmaah caana oo dhammaan soomaalidu meel kastoo ay degan tahay ay isticmaalaan baroortu orgiga ka weyn sheekadii ay ku timidna waa sheekada aan sida fiican uga soo sheekeeyey waxaan filayaa dhammaantiin inaad ila fahanteen sababta ay ku baxday sheekada maahmaahda la yidhaahdo baroortu orgiga ka weyn waxa kale oo aan doonayaa inaan idinku daro oo aan idin raaciyo maahmaah kale oo iyaduna waxay tiraahdaa iyaduna waxay leedahay maahmaahda kalena waxay leedahay nin waliba intuu cunuu ciidamiya waxaan filayaa maahmaahda macnaheeda ma fahmi kartaan ilaa laga sheekeeyo sheekadii iyaduna sidaas oo kale ay ku timid haddaba waxaad ogaataa dhammaan maahmaahaha soomaalidu badankoodu inay maahmaah waliba sabab ay ku timid oo loogu maahmaahay ay jirto ee aanay iska imanin oo aanay ahayn wax la iska yiri uun marka maahmaahdu waa qayb aad iyo aad u muhiima oo ka mid ah afkeena hooyo una baahan in la weeleeyo ama la xafido oo la ururiyo oo la isu geeyo oo da'yarta dambe iyo jiilasha dambe runtii ay ka faa'iideystaan oo ay bartaan sababta iyo ujeedada ay maahmaahahani xambaarsan yihiin ama ay ku yimaadeen maahmaahuhu marka la soo qaato waa kowley labaley saddexley ilaa iyo 12 ley bay socdaan maahmaahdu waxay socotaa ilaa 12 ley waxa jirta maahmaah labaleeya laba way ku hor socotaa laba way ku hareer socotaa labana way ku daba socotaa laba way ku hor socdaanoo hame iyo hunguri baa ku hor socda labana way ku daba socdaanoo geeri iyo gabow baa ku daba socda labana way ku barbar socdaanoo faa'iido iyo khasaara ku barbar socda waa labaley maahmaahdaasi saddex baa ragu tacab liita duduma gujiye dameero didiye iyo durdur guriye duduma gujiye waa ninka qaba naagaan dhal lahayn dameero didiye waa ninka ilaahay habla uu siiyey ee aan inamaba dhalin durdur guriye waa ninkii furay gabadh dhalaysa oo qoyan oo caruur dhalaysa ninka furay baa la yidhaha durdur guriye waa maahmaah saddexleeya afar kama dharagto caalimku cilmiga kama dharagto ishu daybada kama dharagto dhagtu maqalka kama dharagto haweenkuna ragga kama dhargaan taasina waa 8 ley saddex lagu waaniyey saddex bay u halis tahay waa 6 ley
cadrad cagaha dhig lagu waaniye cadaab ceeb bay u halis tahay caalim cibaadaysan lagu waaniye cadaab buu u halis yahay ciroole dhaqasho lagu waaniyena baa la yidhi caydh buu u halis yahay noocyada mahmahaha Soomaalidu waa kuwa aan ka soo sheekeeyay aad iyo aad baad u mahadsantihiin sidaad noo jeceshihiin baan idin jecelahay wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh kulan dambe oo wanaagsan